السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي waan saaxiibada sharafta leh meel kastoo naga daawanaysaan ku soo dhawaada qaybtii labaad ee filimkeenii khiyaano. haddaba ugu horreyntii saaxiibayaal waan idinka mahadcelinayaa sida quruxda badan ee mar walba ay garab istaagtaan. haddii aadan kusoo biirin youtube-kana waxaa ka codsanaya inaad subscribe noo saarto muuqaalkana aad noo like garayso. dhammaantiinaba waa mahadsantihiin saaxiibayaal. haddaynu filimka gudaha usii galno, maalinta hore waxay noo maraysay markii ay dhameeyeen ee ay sii kala tageen. intaa kadib maxamed wuxuu kusoo laabanaya gurigii. gurigani waa gurigiisii cusbaa, waxaana joogtaa ayaana noqon doonta xaaskiisa labaad. kadib markii guriga yimid oo soo fadhiistay fadhigii, abaar ayay wada sheekaysanayaan. kadibna waxaa ku odhanayaa maanta waxaan soo arkay wax aanan weliga arag. kadib waxay ku odhanaysaa maxaa soo aragtay. kadib wuxuu sheegayaa inuu raacay oday ay saaxiib yihiin wiilkiisa oo gabadh loo meherinayay. kadib waxaa ku odhanayaa ayaanay gabadhaasi saddexda magacba aday kaa wadatay, yacni magacaagoo saddexan ayay wadatay. kadib waxay ku odhanaysaa markaa maxay kula noqotay. wuxuuna ku odhanayaa dee wax mucjisa ah. kadib waxay ugu jawaabaysaa hadal una ka filinayn, kaasi oo ah waxba ha la yaabin, gabadhaasi waa aniga. kadib maxamed inta u dhoolacday ayuu ku odhanayaa dee kaftanka naga dhaaf. kadibna waxaa ku odhanaysaa kaftaniga ma aha ee waa aniga. maxamedna arrintaasi waa u qaadan waaya ilaa uu markii dambe dhaariyey, kadibna ay ku dhaaratay. kadib waxay ku odhanaysaa ma ogtahay waxaad samaysay. isaguna wuxuu iska dhigayaa miskiin, kulaha maxaan sameeyey. kadib intay mobilkaas soo qaatay ayaa waxay indhaha ka gelinaysaa muuqaal ay wada duubeen isaga iyo Sumaya. gabadhani sirta oo dhan way soo ogaatay. maxamed yaab ayaa u dhammaanaya. inta kadib maxamed wuxuu ku doodayaa inay waxay beri hore ahaayeen. kadibna faarta ayaa soo qabanaysa. waxay ku odhanaysaa shaarkan sawdigii maaldhaweed xidhnaa. intaa kadib lama ayna sii booqbooqin. waxay ku odhanaysaa waa inaad si dhaqsaa guriga uga baxdaa inta uusan ninkii lahaa kugu iman. alaalxumayna guri aad leedahay oo lagu leeyahay intuusan ninkii lahaa iman ka bax. intaa kadib maxamed si toosta ayaa guriga uga baxaya. balse waxaa dhacay markii uu maxamed guriga kasii baxay waxay iska hor yimaadeen ninkii Asad oo isna hadda guriga soo galaya. Asad ayaa yaabaya oo ku odhanaya waa maxay ninkan sii baxaya. kadibna waxay isku daysaa inay ku qanciso waa nin ehelkayaga ah oo aan wax isku nahay. balse Asad iyo maxamed wejigooda iskuma cusba, sababtoo waxay isku arkeen madashii meherka. dhinaca kalena waxaynu arkaynaa maxamed oo meel fadhiya ayaa waxaa imanaya Sumaya walaalkeed, waxaana u kornaya waa ina warqadii walaasha ka helaa. kadib maxamed ayaa isku dayaya inuu dejiyo, balse intuu iska xanaajiyo kadibna albaabka ayuu ka baxaya. ninkii maxamed habaar ayaa ku dhacay. ka waran labadii gurina waa laga soo saaray, haddana meel ma haysto. haddana isla maalintii dambe ayaa ugu soo noqonayaa isagoo doonaya inuu fuliyo arrintay maalintii dhaweyd isku ogaayeen. balse maxamed oo calaac leer geli kadib ayaa waxaa ku odhanaya waxaan doonaynaa inaan labadeedu kulanno oo kadibna aan heshiino. kadib waxaa ku odhanayaa waa si fiican, haddii aad idinku heshiilisaan anuu dhexdiina soo geli maayo. sidaas ayaana uu kaga tegaya. kadib maxamed ayaa maalintii dambe wax waaya Sumaya isagoo isku dayaya in uu si fiican ula hadlo, islamarkaasna waxaa ku cadsanaya inay kulmaan. kadib waxay u sheegaysaa inayna taasi suurtagal ahayn, iyadoo weliba aad iyo aad u xanaaqsan. balse maxamed ayaa aad u calacalay oo ku odhanaya ilaahay dartii iga ogolow. intaa kadib waa ay ka ogolanaysaa waana ay kulmayaan. balse maxamed ayaa waxaa ku odhanaya fadlan haruurteena iyo qoyskeena oo dane. balse jawaabtii ugu dambeysay oo ka helay waxay ahayd ma qoyska aad adigu gacanteeda ku burburisay, anigii adiga waxba nama dhex yaalaan. intaa kadibna waa ay ka dhaqaaqaysaa. intaa kadib maxamed hooyadii ayaa ay runtu gaadhaysaa. kadibna waxay ku odhanaysaa sidee ayay wax u jiraan. isaguna runta ayuu sheegaya. waxaa ku odhanaya gabadhii Sumaya ahayd furin ayay dalbanaysaa. kadib islaantii yaab ayaa ku dhacaya. dhowr maalin kadib gabadha ayaana hana midii maxamed xidhiidhka u jartay ayaa waxay raadinaysaa guri ay degto. kadibna waxay soo galaysaa mid ka mid a fooqyada ku yaala magaalada, balse isla fooqan ay soo gashay waxaa degan Sumaya. isla markii ay soo aragtayba way garatay inay gabadhani tahay Sumaya, balse Sumaya ma taqaano gabadhan kale cid ay tahay. waxaanay ku odhanaysaa may taqaana aniga. kadib waxay ugu jawaabaysaa maya. ayaana ayaa ku odhanaysaa haddaba anigu waan ku aqaanaa. inta kadib Sumaya aad bay u yaabaysaa, waxaana isodhanaysaa gabadhan halkay kugu aragtay. Sumayana inta yaabto ayaa waxay ku odhanaysaa halkeed igu aragtay. kadib waxay ugu jawaabaysaa ninkaaga kama warhaysid miya. hadda Sumaya shaxda way fahantay. kadibna hadalla dhaadheer iyo sheekooyin ay isdhaafsanayeen kadib ayaana ayaa waxay ku odhanaysaa anigu hadda marwa ayaan ahay, ninkaagiina intaan hantidiisii oo dhan cunay ayaan albaabka ka saaray. kadib Sumaya ayaa ku odhanaysaa marka ayaa ku baneeyay nin islaameed inaad hantidiisa ku xaragooto. kadib waxay ku odhanaysaa ma ninkaas sidaas oo dhan kuu galay ayaad weli jeebkiisa ka fikiraysaa. haddaba saaxiibeel aad iyo aad baad mahadsan tihiin. xalqadeena labaadna halkaas aynu ku saafmeeraynaa. dhammaantiin waa idinka mahad celinaya waqtiga aad ku bixiseen daawashada. waxaan idinka codsanaya inaad muuqaalka like saartaan, channelkana aad noo subscribe garaysaan. haddii aad tahay tiimka facebookna follow tahayna la dhaafin. mahadsanid.